qaybo ka mid ah Los Angeles ayaa weli gubanaysa in ka badan 60 square mile oo u dhiganta in ka badan 156 square kilometer ayaa gubatay waana wadarta marka la isku geeyo deegaanada Eaton, Palisade iyo Harris. In ka badan 90 ruux ayaa aagaasi ka barakacay. Sidoo kale 89,000 oo ruux ayaa loo diray fariimo loogu sheegayo in ay isku diyaariyaan inay ka barakacaan aaga ay degan yihiin. Dabaylo xooggan ayaa caawa oo Isniin ah halkaasi ka bilaabanaya waxaana ay socon doonaan ilaa iyo Arbacada. Waxaana laga baqayaa in dabeeshaasi ay sababto in dabka uu sii fido oo meelo hor leh uu gaaro. Ciidanka dabdamiska ayaa weli ku howlan daminta dabkaasi. Diyaaradda C-130J oo ka mid ah diyaaradaha dabdamiska ciidanka Mareykanka iyo diyaarado kale ayaa weli ku howlan daminta dabka ka socda Los Angeles. 9 ka mid ah gobolada Mareykanka iyo weliba Canada iyo Mexico ciidamadoodii dabdamiska ayaa la soo diray oo waxa ay ka qayb qaadanayaan daminta dabka xooggan ee maalintii Talaadada ah hadda soo dhaafnay ka bilowday Los Angeles ilaa haddana halkaasi ka socda. Dhimashadu waa 24 ruux, 23 kale ayaa la la'yahay halka jaan iyo cirib ay dhigeen. waxaana lagu xisaabayaa 23daasi in ay dhinteen inkastoo aan weli la xaqiijin. Xaaladda waa allow sahal. Dabdamiska ayaa muddo isbuuca ku howlan daminta dabkaasi oo cirka iyo dhulka ayay dagaal kaga wadaan dabkaasi balse ilaa iyo hadda waa ay xakameyn la'yihiin dabka xooggan ee ka socda Los Angeles. wixii soo kordha shacyo warshow ayaad kala socon doontaan asxaabtaadii la wadaag haddii aad nagu cusub tahayna waxaan ku leenahay inagu soo biir waa maasan tahay.